wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta wuxuu kormeer ku tagay xarunta ay ka socoto shaqada imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaaday sanad dugsiyeedka 2018-2019 oo shaqaalaha wasaaraddu ay ku hoolan yihiin dardargelinta dhamaystirka xaraynta xogta imtixaanka la saxay. wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa agaasimaha xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda ka dhageystay warbixin ku aadan halka uu marayo dhamaystirka howlaha imtixaanka. sidoo kale wasiirka waxbarashada ayaa mid u dul istaagay shaqaalaha qaabilsan dhamaystirka imtixaanka wuxuuna ka wareystay habka uu socdo howlaha imtixaanka. sixidda imtixaanka ayuu sheegay in uu soo maray wajiyo badan isla markaana hadda uu taagan yahay heerkiisii gabagabada oo ah xaraynta imtixaanka la saxay isagoona intaa raaciyay in dhawaan la shaacin doono natiijada imtixaanka.